xaqiiqda ku salaysan kelinimada ma waxa ka baqdaa inaad kelinimo ku dambaysid maanta ma dareemaysaa inaad keli tahay oo dad aad ku dhex jirtid ma ka dareemaysaa inaad dareemaysid keli oo mararka qaar ma dareentaa ma ciishootaa ma istiraahdaa su-aasha ah maxaa adigu keligaa ay waxaanay kuugu dhacayaan maxaa adiga laguu fiirsanayaa haddaba waxaan ku xasuusinayaa sideedaba marka aad qol soo gashid qolka waxa ifiyo waa le adiga meesha aad joogtid haddii lagugu wada mashquulayo waxa aad aamintaa meeshaasi inaad leer ka tahay tusaale ahaan mararka qaar marka aad xanuunsatid waxa laga yaabaa in guriga sida aad moodo ma ahane si kale uu noqdo buuqi badnaa uusan jirin kaftiga badnaa uusan jirin iscircirsiga iyo qaylada aysan jirin waxa laga yaabaa maanta haddii qofkii aad xiriirka wada laheedeen haddaad kala aamustaan ama aad isbaloogtaan sidii hore inaysan ahaanin fikirkii badan aad kala aaminsaneedeen iyo waxyaabihii badnaa ee meesha dhex mari jiray inaysan imaanin waxa kaloo laga yaabaa maanta haddaad asxaab leedahay ay ku fikirayaan in asxaabtaada ay ku isticmaalaan oo sida ay doonaan ay ka isticmaalayaan maalinta aad ka gaabsatid sidii hore u dhaqmayeen uma dhaqmayaan sababtu ma taqaanaa gaabsasho la'aantaas aad keenaysid waxa ay sababaysaa mar walbaba inaad adigu baqdin ku noolaatid qofku hadduu baqdin ku noolaanayo oo isleeyahay maxaa ku dambey doontaan dhibaatada lagu hayo iyo dhibaatada asiga isku hayo way badanaysaa marka ay badato mar walba wuxuu u muuqanayaa qof liita markuu u muuqdane qof walbaba markaasi daris la soo noqda ama saxaab la soo noqdo asiga eed ayuu saarayaa eeduna waxa ay timaadaa qofku markii uusan xuduud lahayn maanta haddii aadan xuduud lahayn qofka markaasi aad la nooshahay ama ha kaa weynaado ama asxaab ahaada ama xiriir ha idinka dhexeeyo haddii aadan marka hore xuduud eedan wada dhiganin qofkaasi wuxuu aaminayaa inuu ku leeyahay inuu yahay booskaaga in wax walbaba uu asiga rabo inaad u fulinaysid haddii maanta ay iskaga kaa qaldan tahay jacaylka iyo rabitaanka oo aad qofkii ku raba aad moodaysid inuu ku jecel yahay taasi waxay sababaysaa mar walbaba inaad ku dambayso guuldarro rabitaanku ma aha marka ay ku soo wacayaan ay ku soo raadsanayaan inay ku jecel yihiin rabaan waqtiga inay kula qaybsadaan marka ay ku eedeynayaan ama ay ku dhahayaan waa isbedesha ama waxaan maxaa u samaynaysaa ha moodin inay adiga kaa walwalayaan ama hamoodin inay qiimeynayaan xiriirkaaga iyo saaxiibtinimadaada iyo ehelnimadaada ee waxa ay rabaan booska aad shala taagneed ee nacamleynta ahaa boos ka badan inaad sii istaagtid oo aad macnaha dee mar walba wanaajisid ay ku jecel yihiin dhibaatada ayay kaa ilaali lahayeen haddii ay ku jecel yihiin wax walba wanaaga ayay kuu sameyn lahayeen haddii ay ku jecel yihiin kumaysan dadaaleen habeenna inaa ciil ku seen maanta sida aad u wada dhaqmaysaan waxay ku xiran tahay sida aad u wada hadashaan haddii hadalkaagu uu xun yahay sheekada way sii xumaanaysaa haddii uu hadalkaagu wanaagsan yahay waxa ay noqonaysaa sheekadu mid liis fahmi karo inkastoo ay jiraan dad hadalka aad u wanaajinaysid haddana sheekada sii xumeynaya waxa aad ogaataa qofkani aad hadalka u wanaajinaysid haddana sheekada sii xumeynaya maxaa ka qaldan adiga waxba kaama qaldana ee asiga shakhsiyadiisii wax ka qaldan yihiin haddii ay shakhsiyadiisa wax ka qaldan yihiin maaha in shakhsiyadaada ay xumaato ee waxa aad raadisaa wax naftaada ay ku farxayso sida ay naftaada u farxayso badanaa bini'aadanka marka aynu u baahanayno waxaynu uga baahanaa waxyaabo qaas ah waxyaabahaasi aad qofku uga baahan kartid waa inaad qorataa waa inaad ku dadaali kartaa waxaani aad qofku uga baahatay keligaa ma dhamee kartaa yaa kaloo isdhihi kartaa wuu kula qaban karaa dadku bilaadanku aad u tiro badan yihiin tusaale ahaan maanta haddii aad geemka dheeshid geem uun dheeshid oo aad jeceshahay in qof uu kula dheelo hal qof uu kula dheelo oo qofkaas aad dhehaysid ha kula dheelo hadduu intuu ku soo waco uu ku yiraahdo maanta geemka ma dheelayo dhammaan muu joojinaysaa geemka habeenkaasi ama waqtigaasi aad geemka dheelaysid waa inaad qof kala raadisaa oo geemka dheela laakiin haddii aad u joojisid oo aad habeenkaasi aad geemka ciyaarin taa micnaheedu waxa ay tahay in qofkaasi aad ku xiran tahay oo noloshaada ee qofkaasi ay ku xiran tahay maanta haddii aad social media isticmaashid Facebook dad badan baa ku jira WhatsApp-ka asxaab badan baa ku leedahay dhowr qof waa heli kartaa ugu yaraan waxa taqaanaa 10 qof ama ehel ahaadaan ama asxaab ahaadaan haddii maanta qof uu ku yiraahdo geemku lama dheelayo qof kale soo qabo haddii uu soo waco uu ku yiraahdo xal ma dheeshay oo aad tiraahdo ha hebel aan la dheelay ama heblaaya la dheelay waxa uu dareemayaa inaad ka maarmi kartid markuu uu dareemay inaad ka maarmi kartid habeen dambe ama xilli kale haddii aad tiraahdo ma wada dheelna isla markuu wuxuu ku leeyahay okay aan dheelno laakiin haddaad tiraahdo xal ma dheelin adiga ma dheelin qofku waxa uu dareemayaa inaad asiga ku xiran tahay qofna naftaada ha ku xirin haddii aad maanta wax u baahatid oo qofka aad wax la sameey lahayd oo ku yiraahdo maya raadi qof kale oo aad la sameey kartid ku dadaal inaad qaabab kale wax u sameey kartid kali waxaan noqdo haba qofka sidoo iska dhigo
waxaa jira waxyaabo badan oo qofka bini'aadanka shakhsiyadiisa uu ku mashquuli karo, waxyaabo badan uu qaban karo, waxyaabo badan oo shakhsiyadiisa farxad geli karo, waxyaabo badan oo waxaa jira qofku markii uu ku mashquulo uusan waqti kale qof kale u helaynin. laakiin haddii aad noloshaadii aad bartay inaad qof wax kula mashquushid, qofkaasi maalintii uu danaysto ama wax uu qabsado waxa aad ku soo dhacaysaa meel cidla marka aad ku soo dhacdid waxa dareemaysaa kelinimo marka aad dareentid waxa la noolaanaysaa walwal iyo walaac. qof walba badanihiisa ayuu ku mashquulaa, laakiin adigu haddaad danaha ku mashquuli karin oo aysan ku qorneen waxa danta ku ah, waxa ahaanaysaa qof mar walba dhaawac la soo dirsa, waxa ahaanaysaa qof markii loo baahdana loo yimaado, marka aan loo baahnina laga danaysto. sideedana haddii aad baahida iyo jaceylka aadan isku qaldin waxaad noqonaysaa qof nolosha guul ka gaara. maanta haddii ubax guriga uu ku yaalo, ubaxaasi maalin walba aad waraabisid, waxa aad ka fikiraysaa ubaxaasi inaad jeceshahay oo maalin walba aad jeceshahay inaad aragtid. laakiin haddii aad soo gadatay aadan waraabin, ubaxaasi 2 maalin 3 maalin kadib haddii uu yaalo wuu u dhimanayaa. muhiimadda aad ubaxaasi ugu soo gadatana waxay ahayd waa rabitaan aad maalintii kaliya aad aragtay ka heshay. dad noocaas oo kala jira ka helaya, raba inay kula sheekaystaan, raba inay waqtiga kula qaataan, raba inay kula joogaan, raba inay macnaha adiga kaliya ku isticmaalaan in macnaha waqtigooda iyo danahooda aad u fulisid. laakiin maalinta ay dan ku timaado aadan helaynin. marka si aysan taasi u dhicin, marka hore waa inaad heshaa wadadaada dhabta ah. marka hore waa inaad heshaa waxa aad qofkaani ka simantihiin oo aad wada sameyn kartaan, oo haddii uu ku waayo murugoonayo. laakiin haddii aysan jirin wax aysan ka mid ahayn kaliya uu asiga dan leh kugu leeyahay, markaas waxa ku noolaanaysaa in macnaha ahaatid qof loo baahan yahay kaliya. markii loo baahda kaliya loo imaanayo, marka kalena laga tagayo. taasina asxaabnimo ma noqoto, ehelnimona ma noqoto, xiriirna ma noqoto. mar walba waxa aad ku dadaashaa qofka markaasi ehel idinka dhaxeeyo ama saaxiibtinimo idinka dhaxeyso ama xiriir idinka dhaxeeyo, waxa markaasi dan aad ku wada wadaagaysaa. haddii qofkani uu aamino inuu adiga kaliya rabo inuu ku isticmaalo, ka fikir sababta uu ugu fikirayo. haddii qofku uu kaan weyn yahay, tusaale ahaan uu ehel yahay oo aad la nooshahay, uu doonayo kaliya inuu ku isticmaalo oo ku isticmaalo kaliya waxa uu rabo inaad fulisid, sababta maxay tahay? waxa laga yaabaa inuu iska dhacdhacsiyay inuu mas'uulka yahay, mas'uulnimadaasi uu soo marayo inuu adigu mar walba waxaad u samaysid. qofkan waa inaad la hadli kartaa, inaad dareensiin kartid inaad ka mid tahay ehelkiisa, in macnaha aad u baahan tahay farxad, inaad u baahan tahay gacan qabad, in aad hadal iskaga celi kartid. laakiin haddii aad aamusan tahay, aamuskaasi waxa uu badinayaa dhibaatada marka ay sii badato waxa noqonaysaa mid aad murugo la nooshahay, mid aad kelinimo dareentid, mid aad istiraatid maxaa ka qaldan. si aysan taasi u dhicin, mar walba waxa ku dadaashaa maxaa dan ku ah, maxaa ku farxad gelinaya, maxaa ka hadli kartaa. haddii aadan hadli karin oo aadan qori karin dhibaatada lagu geysanayo, waxa noqonaysaa mid mar walba dhibaato la nool. ku dadaal dhibaatada lagu geysanayo inaad qori kartid. qofkuna siyaabo badan ba wax ugu sheegi kartaa, qoraal ahaan waraaqad ba u qori kartaa, waa u dhiibi kartaa. haddii aad ka xishoonaysa ama aad ka baqaysid, si gooni ah ugu tegi kartaa. qof markaasi aad u mari kartaa, dhihi kartaa qaabkaas ayaa lila dhaqmaya, uma qalmo. marka aad qaabkaasi u nooshahay, waxa ku sahlanaanaysa culayska inuu ka dego. way badan tahay dad aan ku fahmaynin, way badan tahay markii aad hadashid dadku sii xukminaya, laakiin ha u joojinin. ujeedadaadu ha ahaato inaad hadli kartid, inaad dareemi kartid farxad. maanta haddii dhib lagu hayo oo dhibtaasi mar walba aad isku sii liidaysid, maskax ahaan iyo caqli ahaan iyo muuqaal ahaanba waa u dhimanaysaa. si aysan taasi u dhicin, hadalkaasna ha ahaado mid wanaagsan. marka aad xanaaqday kaliya ha hadlin, marka aad faraxsan tahay xataa inaad hadli kartid. waxa aad kaloo ku dadaashaa qofka bini'aadanka markii aad la hadlaysid inaad isdhihi kartid markaani way ku habboon tahay inaad la hadli kartid, aanan buuq ku furnayn, uusan dareemaynin xanaaq, uu caadi iska yahay. markaasi la hadal, waxaasaan dareemayaa. haddii qofku uu ku xukumo, uu ku yiraahdo waa eed badan tahay, waa saan baataa, waxba ha ka soo qaadin. ujeedkaagu ha ahaado inaad hadli kartid. qofba qofku ka hadal badan yahay waa ka caafimaad badan yahay. maanta haddaad dhib dareemaysid, ku dadaal inaad hadashid. marka aad hadashid, culaysku kaa yaraanayaa. ha isdhihin ha ku fahmaan. muhiimaddu waa inaad hadashaa. hadalkaasi wuxuu kuu sahlayaa in aad dareentid nafisaad, in qofku xataa mar uun isbedelo. waa saaxiibka Shahid Baysani. haddii aad videogan ka heshay, asxaabtaada la wadaag. meel walba aad dunida ka joogtaan, Allah idinku xifdiyo.
kelinimo ha ka baqin ee ka baq in lagu xumeeyo. Salaamu calaykum.